yaqiinta dhabta ah waxa weeye in hadalka nabigu uu yiri aad sidiisa u qaadato basaan idin sheegaya bari baan anagu meesha afgooy jamaaca oo khuruuj fi sabiilillah u baxday barraayaan oo xamaran ka baxay xaqantay marka nin waxa ku jiray dadkan oo cadcadka oo reer afgooy ah ayaa wuxuu ahaa nin nashiid oo daaci oo khuruujkaas iyo baxo sheeku ka sheekay wuxuu yiri aniga sababtaan khuruujkan ku bilaabay markii hore wuxuu yiri nimankan aad u lama haynino masaajidka markay yimaadaan xataa geesi waxbaan uga leexleexan jiray waxa dhacday yiri niman Pakistan ka yimid masaajidkan afgooy ku soo tagay anna wuxuu yiri dukaan baa meesha ku leeyahay tafsiirna masaajidkan ka akhristaa xogay waan maalintaas baan habeenka baan isaga naxay ma iska ag fariisatay waa iska ag fariisatay marka hadalka dhamaaday waxay dhaheen wanimayo waxaan u soconaa waa lugeynaynaa tuulo oo intaas oo kiiloomitir ma 10 buu igu yiri ma 15 hadda ma xusuustee oo baadiyaha ku taal baan u soconaa yaan u ducaynaa oo maaragtay noo nusreynayo na raacaya marka ana diyaar baan idin waa raacay sidii baan raacay waa lugeyno yiri tuuladii baan tagnay habeenkii tuulada masaajid male geed quraca ayaa waa laga samaystay oo lagu tukadaa buu yiri oo salaadna waa dugsina waa geedkii iska dagno yiri meesha alaabta la dhigtay habeenkii markii aan sii seexanayno furaashkii nin walba furaashkiisa dhigtay mas iyo abeesa waxay tahay ma ogi weyn baa kor ka soo dhacay yiri geed korkiisa oo aad weyn abeesa mas maxaa leeyahay afkan af isuudan urbu adu bagarana mas weyn meesha ka soo dhacay dhulku ku soo miduu furaashkiisa ku dhacay kadibna intuu cararay buu wuxuu galay oo dhex galay waa la kala boodo yiri nin walba meel buu u booday la kala carariyo toosh maasha nal male toosh baa la haystaa waa la raadiyay habeenkaas oo dhow waa la waayay maskaas miyuu ka sii baxay waa la arkay mid weyn inuu yahay ma meeshuu ka sii galay ma meeshan ku dhex jiraa lama oga marka ninkii odayga u ahaa amiirka u ahaa jamaacada amiir leeyihiin bogtay ayaa wuxuu yiri waa la tashaday waxa la tashan bal war hala keeno waxay sameynaa waqtigii hurdadana waa la joogaa meesha ma la saxan karaa ra'yiga laga qaaday war bal maxay kula tahay adiga war adna maxay kula tahay wuxuu yiri waxa loo batay ra'yi ah in meesha aan ka guurno meel kale aan tagno maadaama meeshii cadow aan ku aragnay haddana uma jeedno ninkii wuxuu yiri buu yiri arrin yaab loo keenay wuxuu yiri mid baan weydiinay xadiis nabiga ma maqasheen buu yiri saxiixa oo uu leeyahay man nazala manzil meel ninkii soo dago safar oo meel daga habeenkaas oo faqala yiraha a'uudhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa ducadaas ducaysta lam yadurruhu shay'un hatta yartahil shayna waxba kama dhibo ila uu meesha ka guuro xadiiska midii soo maray habayde waana soo maray ma maqasheen waa maqalay hay xadiiskaas tadbiiqi shacaa la joogan amiirkiina isaga waa bogta warkiisa lama soo celin karo wuxuu yiri xadiiskaas habeenkii la hirgelin lahaa baan joognaa meesha ka tagmayno nin walba ducada ku ducayso furaashkaagana seexo yaqiin dhabana qalbigaaga ka soo go'do maadaama nabigu hadalka yiri inuu dhab yahay waxba kuma yeelaan wuxuu ninkii baa ii sheekaynayo Soomaaliga ahaa ila qisada anigu ma joogin wuxuu yiri nin walba furaashkiisii buu seexday waa gogladay aniga furaashkaygii baan seexday meeshan fariistay waa la ducaystay nin walba ducadaas uu akhristay waa la seexday wuxuu yiri iyagii Pakistanka ahaa ee safarka ahaa hada uu dhaaranaya isagu wuxuu yiri wallahi kama soo wareegin 10 daqiiqo ama 5 daqiiqo ama 10 daqiiqo kulli waa wada khuurinayeen buu khuuro hurday kale waa saxday waa gameen wala rasuul weynaa kan ma cod maleey نعم وحلو وسحدين لكن أني هرجع وإيجا مويس
habeenkii oo dhan galgalasho markaan shanqar yar maqal waxaa la waaka uu soo baxay hadda ku qaniiri marna waa iscanaantaa waxaan idhaa buu yidhi wakaale maxaad kaga duwanaatay dadkaan ducadii akhriyeen waa akhrisay adi maxaa la seexan weyda iyagoon u saaxdeen wallahi wuxuu yidhi sidii loo ahaa qiyaamuleyl bay u kaceen habeenkii waa kaceen waa tukadeen salaadii subax baa la tukaday aniga su'aal marka wadaadadii weydiiyey waxaan iyagu ma wax kala akhriseen mise kanun baa akhriseen may kanun baan akhrinay haddii idinku waa seexateen anigu habeenkii ugu dheer adduunka isoo maru ah ma seexan maxaa jira wallahi waxay dhaheen insha allahu dee kolley ilaahay safarkeenna iyo masaakiin baan noo dibaddan ka nimido ilaahay intaa noogu naxariista oo yaqiinna siiyaa laga yaabaa adigana haddaad dadaasho ani maalintaasaan bilaabay buu yidhi oon idhi wallee iyo bilee waxaan aad heshee waa inaan goob doono aniguna khuruujkii meeshaan ka bilaabay buu yidhi sidii baan khuruujkii ku taagnay bal inaan yaqiintaas soo taabto marka alyaqiin calى kalaam اllah wa kalaami rasuuli اllah xadiid kale oo uu nebigu odhanayo man qaala xiina yakhruju min beytihi gurigiisa markuu ka baxo ninkii yidhaah bismi اllah tawakaltu calى allah walaa xawla walaa quwata ila billah haddi waa taqaan miya yaa ku baray macallinkaa ku baray maa sha allah macallin fiican baad leedahay zaadaka allah guriga markaa ka soo baxaysa ma dhahda mar kaste ha iloomin bismi اllah tawakaltu calى allah walaa xawla walaa quwata ila billah sheekadeeda dhegeysa marka sheeko adigoo kale ku saabsan aan kuu sheega ma taqaan hooyaa kuu sheegtay hooyo fiican baad leedahay adiguna maa sha allah adigana horaad ka xusuusataa wallahi ilma fiican baad meesha ku haysaanba bismi اllah tawakaltu calى allah walaa xawla walaa quwata ila billah sheekaa dhacday ilmo yaroo kanoo kale ah yaa ducadaas ku ducaystay iskuulku aaday wadamadaas carabtay ka dhacday subaxii marka fasalka ciyaalkii baa adigu qaar edebdarro sameeyeen isagoo edebdarro ma samayn isaga edebdarro ma samayn macallinkii wuxuu yidhi yaa sameeyey arrintan way sheegi waayeen wuxuu yidhi kulli waa idin dilaya mid walbaba waa inaan 5 ulood ku dhuftaa gacmaha taaga kanuu ka soo bilaab yarkii markuu soo gaaray yarkii wuxuu yidhi macallin aniga may dili kartid maxaa dhacay maxaa ku dili waay wuxuu yidhi aniga gurigayga saaka markaan ka soo baxay waxaan idhi bismi اllaah tawakaltu calى allah walaa xawla walaa quwata ila billah waxaana la ii yidhi malag baa ii dhawaaqay sida nebigu noo sheegay wuxuu yidhi wuqiita wakufiita wahudiit wuqiita waa lagu ilaaliyey wax ma kugu dhacayo wahudiita waa lagu hanuuniyey ma garatay marka maadaama ilaahay uu saas ii ballan qaaday ducadaasna aan ducaystay ima dili kartid ilahay baa iga kaa celinaya macallinkii dab waa macallin muslim wuu yaabay arrintii arrin yablay ku noqotay wuxuu yidhi war bal hadalkaa ku celi wuxuu yidhi yaa macallim aniga awalan idib darro ma samayn ثانيا aniga ima dili kartid liannu saaka waxaan kusoo ducaystay ducadaas ilaahay baa iga kaa celinaya macallinka wuu cabsaday wuxuu yidhi wallahi inaana ku dilay laakiin ina keen wuxuu u geeyey mudiirkii dhannahay madrasada u geeyey wuxuu yidhi ninkii manager maxaa la yidhaha meesha maamulaha iskuulka rectorkii buu u geeyey wuxuu yidhi dhegayso yarkaan saasuu yidhi ninkii mudiirka ahaana madrasadii oo dhan buu soo ururiyey arrintii arrin weynay noqotay bal ilmaha yaqiintiisa fiiriyey yaqiin dhab ah maadaama uu xadiidkaas maqlay waxaa lagu yidhi ilaahay baa ku ilaaliyey wuxuu yidhi ima taaban kartid macallinow maxaa yeelay maanta ilaahay baa iga kaa ilaalinaya ducadaas ma soo iloobin adiga waxaa tiri waa soo iloobaa soo maa haddaadan iloobin macallin kuma dilaayo mise meesha lamaba dila ciyaalka allahu latiifun bicibaadi allah yarzuqnaa waiyaakum yaqiinta allah na siiyo haddaan yaqiin la nimaadno dikriga ilaahayna aan daa'imno ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr fara badan buu noo furayaa wax badan oo naga hadlaysanna waa noo hagaajinayaa wax kasta oo naga xumaada muslixuhaa huwa allah waxaan weyne ka nasiinayaana waa allah yaqiintaas dhab ah ayaa lanaga doonayaa dhibaato badan baa iska jirta waa la cabanayaa qof walbaba wax buu sheeganayaa alladii yaqdii xaajataka huwa allah asbaabtii aada u mari lahaydoon adigu ha gafin asbaabta aad u mari lahayd waa maxay tawasaluu ilayhi bilcamali الصaalix yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu اllah wاbtaguu ilayhi اlwasiila wajahiduu fii sabiilihi lacalakum tuflixuun
أسبابتي كو سهل إلهي أدو الله إمو إلهينا بري حاجة هذا إلهي وكو قدي